Videogii hore iga kala go'ay kan labaad bahashan huruudda ah waxay dawo ka tahay oo kale rheumatism-ga kansarka way ka hortagtaa kansarka ku dhaca xiidmaha ka ku dhaca ishak xamiitida ka ku dhaca naasaha inta way ka hortagtaa huruudda markaad isticmaalayso malgacadda bunka ama malgacadaha ugu yar yaa darsanaysaa habeen iyo subax waad isticmaali kartaa juuskaad ku darsanaysaa caanahaad ku darsanaysaa sidaas sharab ahaanta in loo isticmaalaa fiican murqa xanuunka rheumatism-ga daway u tahay nadiifta wejigana number 1 bay ka yacnaha ka qayb qaadataa marka saa la socda qaybta labaad aan idin soo geliyay taa weeyaan huruudda waliba marka isticmaalayso waxa fiican baa la yiri in filfil yar oo shiidan lagu darsado lagula isticmaalo oo ma aragtaa iyadna way xoojinaysaa baa la yiri haddii aad uur leedahay ama aad nuujinayso ama aad dawooyin kala qaadato ha isticmaalin iska daa intaas yacnaha digniin baa laga bixinayaa kala tasho dhakhtarka kugu horeeya ama qofkii cilmi u leh kala tasho haddii ma aragtay aadan inta midna aadan ahayn waad isticmaali kartaa faa'iidooyin badan bay leedahay dhiigga fadhiista xinjirowga aad daway uga tahay huruudda dawo weeyaan dhiigga xinjirowga dad badan buu hayaa dhiigga way fududaysaa maxaan ku rahdaa dhiig karka sokorta intaba waxaas oo dhan daway ka tahay wax badan baa yacnaha uu ahaa ma aana soo wada koobin faa'iidadeedu marka saasaad ula soconaysaan waa walaashii Nasr Nasiib oo mar walba jecel inay idinka faa'iideyso waxyaabaha wanaagsan ma aragtay kor u qaadaya qofka noloshiisa iyo firfircoonadiisa iyo quruxdaba marka aad baan idin salaamayaa waan idin jecelahay welcome ayaan idin leeyahay